Habeenkii 19 Janaayo 2010 nin ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dubai. Wuxuu watay boorso yar, wuxuu u ekaa ganacsada safar ku jiro. Cidna ma aysan ogeyn inay ahayd saacadihii ugu dambeeyay ee noloshiisa. Magaciisa wuxuu ahaa Mohammed Al-Mabduud. Wuxuu ka tirsanaa ururka Xamaas. Wuxuu muddo dheer ku jiray liiska bartilmaameedka sirdoonka Mossad ama sirdoonka Israel. Laakiin Dubai wuxuu u arkayay meel nabdoon. Wuxuu galay hotel raaxo leh. Wuxuu dalbaday qol. Wuxuu sugayay kulan ganacsi. Isla habeenkaas dad kale ayaa soo degay magaalada. Waxay u ekaayeen dalxiisayaal. Qaarna waxay u ekaayeen lamaane isjecel, qaarna waxay u ekaayeen ganacsato. Laakiin dhab ahaantii waxay ahayd koox qarsoodi u shaqaynaysay, waxaana la tuhunsan yahay in ay ka tirsanaayeen Mossad. CCTV-ga hotelka ayaa qabatay dhaqdhaqaaqyo yaab leh. Lamaane gacmaha is haysta oo istaagaya dabaqa uu deganaa. Nin kale oo si degan u eegaya kaamiradaha hotelka. Habeenkaas albaabka ayaa si aamusan loo furay. Lama maqal rasaas, qaylo. Subaxii xigtay meydkiisa ayaa laga helay. Markii hore waxaa loo malaynayay dhimasho dabiici ah, laakiin baaritaan kadib waxaa la ogaaday in ay ahayd howlgal sirdoon. Dubai waxay soo bandhigtay muuqaallo CCTV kaamirada ah. Dunida oo dhan ayaa daawatay. Wajiyo kala duwan, dad iska dhigaya lamaano, dad u ekaa dalxiisayaal. Laakiin markii sawirrada la shaaciyay, kooxdii waa ay baxsatay. Qisadan waxay muujinaysaa xaqiiqda murugada leh. Marka qaarkood sirdoonka ma adeegsada qori kaliya, wuxuu adeegsadaa kalsooni, wuxuu adeegsadaa muuqaallo jacayl, wuxuu adeegsadaa magacyo been abuur ah iyo faylal ganacsi. Haddaba ma ogtahay in wax badan oo naga qarsoon maalin waliba dunida ay ka dhacaan? Waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa marar badan qisooyinka la xiriira dhacdooyinka aadka u cajiibka badan ee ka dhacay magaalooyin nabdoon, dowladahooda iyo maamuladoodana ay si joogto ah u shaqaynayaan.